Elon Musk ayaa iibsaday application-ka Twitter isagoo oo isbaada ka qaaday afkan oo u furay aafadii ugu weynayd internetka oo ahayd odaygan siistayna abkan $44 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. What? intaa waxa ka yaab badan inuu ariyay in kamida shaqaalihii intii soo hadheen oo ugu hanjabay inuu ariyi doono wuxuuna intaa ku daray inuu lacag ka qaadi doono isticmaalayaasha haysta calaamadda xaqiijinta ama verification badge-ka isagoo oo ku soo kordhiyay update-kii ugu weynaa abid application-ka Twitter oo ah edit button-ka ama calaamadda dib u saxa milyaneerkan majaajilaystaha wuxuu wacd ku maray inuu ka dhigi doono abkan midka ugu wacan adduunka uguna waxtarka badan ma ogtahay Musk waa milyaneer Afrikaan ah oo maamula in ka badan 3 shirkadood muuqaalkan se waxaanu kaga hadli doonaa xaq ku cusub internetka ama social media kala duwan aysa u nimaad dhanka iyo YouTube sidaad aragtay ama aad arki doonto waxay update fara badan ku sameeyeen dhanka UI-ga ama shaashada isticmaalayaasha si fudud waxay ka dhigeen wax kaste qaab gooba ah ama wareegsan sida tusaale ahaan sawiraanta sare ama thumbnail-ka bidinada iyo notification-nadaba sidoo kale waxay bedeleen midabkii subscribe-ta oo ahaan jirtay casaan haatan se waa sidan waxaase xusid mudan dhanka khaanadaha ama playlist-ga oo ay ku sameeyeen iyagana update aad u fiican una qurux badan waxaanse la ilaabi karin inaad haatan muuqaalada soo dhaweysan karto in ka badan 50 jeer sidoo kale waxay soo kordhiyeen handles oo ah usernames ama lifaaq magaceed ku gaar ah oo aad u samayn karto kanaalkaaga waxaase xusid mudan creator music oo ah adeeg cusub oo ku tacalluqa isticmaalka muusiga copyright kale sidoo kale waxay update ku sameeyeen dhanka comments-ka ama faallooyinka iyo description-ka ama sanduuqa qoraalka ugu dambeyntiisa waxay update fara badan ku sameeyeen dhanka UI-ga shakhsi ahaanse kama helin updates-ka qaar sida subscribe-ta adigu sideed u aragtaa daawade nala wadaag fikirkaaga iyo faalladaada si aad u hesho hadaba update-kaas waxaad update raada application-ka YouTube isma dhaafna saaxiibayaal